maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona Chapter 2 of grade 9, grade 10 wuxuu ku saabsan yahay Kingdom Balanteo ka hadli doonaa chapter kan Balantiska guud ahaan aan naqaano waxay ka tirsan yihiin Kingdom Balantea hordhac ahaan uu chapterka ugu bilaabana hadalkan Balantiska waa multicellular eukaryotic organisms leh rigid cell walls ka samaysan cellulose Plants also waxay leeyihiin green colored pigments la yiraahdo chlorophyll that's important for photosynthesis. This chapter deals with the basic systems of plant classification and methods of reproduction in plants. Uu ka hadlayaa guud ahaan specific objectives of this chapter waxaa ka mid ah ardayga in uu aqoonsan karo astaamaha guud ee lagu yaqaano balantiska geedaha ama dhirta specific objectiveska chapterkan waxaa ka mid ah ardayga inuu qeexi karo ama aqoonsan karo astaamaha lagu yaqaano geedaha guud ahaan inuu qeexi karo balantiska asagoo bixinaya tusaale for each group of plants describe how plants are classified with examples mid walba iyo tusaale inuu isku daro deduce the general characteristics of seed and seedless plants gymnosperms angiosperms monocots and dicots waxyaabahan oo dhan laga rabaa inuu qeexo ardayga uu kala yaqaano inuu kala sooco uu kala saaro qaybtee shoot ah qaybtee ah root systemka geliso waxaa la rabaa inuu sawir uu sameeyo drawing and labeling objectiveska mar hadday ku jiraan waxaa qasab ah in la sameeyo marka waxaa laga rabaa ardayga inuu sawiro internal structure of stems roots and leaves inuu sawir ku sameeyo waxaa laga rabaa inuu sheego types of stems roots and leaves noocyadaas inuu kala yaqaano ayaa muhiim ah oo objectiveskana ka mid ah waxaa laga rabaa inuu qeexo leaveska sida geedka ay ugu yaalaan plant leaveska qaabka ay geedka ugu samaysan yihiin shapeska kala duwan iyo styleska kala duwan ee leaveska geedaha ay u samaysan yihiin ayaa laga rabaa sectionska waxaa ka mid ah Kingdom Balantea classification-keeda ay ku bilaabanaysaa kadib non-vascular plants ama bryophytes-ka ku xigo section-ka saddexaad waxaa looga hadli doonaa vascular plants kan afaraadna waxay ka hadli doontaa stem root and leaf structure-kooda sida uu noqonayo structureska kala duwan ee geedka qaybihiisan kala duwan methodology-ga loo isticmaalayo chapterkan waxaa ka mid ah oo munaasab ku ah discussion method xoogaa lecture-na waa lagu dari karaa in demonstrations la sameeyo oo macallinku soo bandhigo sawirro kala duwan oo muujinayo chapterkan contentigiisa qaybtii hadba looga baahdo waxaa kaloo lagu dari karaa ardayda in la geeyo meelaha geedaha loo baahan yahay ama la daraaseynayo ay ka baxaan field excursions or field trips flashcards ay ku yaalaan sawirro iyo magacyo geedu ama scientific names of plants iyo common nameskooda ama scientific name iyo sawirka geedka ay iskula yaalaan ugu isticmaali karaa si uu u baro geedaha kala duwan ee ku yaala dalkeena guud ahaan
activitieska meeshan laga soo xushay jabtarkan waxaa ka mid a midan oo dhahaysa in waxaa la rabaa geed uu soo qaato ardayga geedkaas uu jaro uu soo muujiyo ama label gareeyo zone of standard deviation, zone of elongation, zone of maturation, root hairs iyo root caps sida sawirkan ku cad oo kale. Sawirkan uu fiirinaya marka hore kadib wuxuu soo qaadanaya root, plant root wuxuu ka soo qaadanaya fieldiga meesha ugu dhow. Wuxuu ku sameynayaa longitudinal section of that root kadibna wuxuu astaameynayaa oo la rabaa inuu calaameeyo afartan qaybood ee meeshan ku xusan. Macalinka marka wuxuu ka caawinayaa inuu ardayda inay soo aruuriyaan plant roots kadibna ay sameeyaan transfers and longitudinal sections of the roots. Hadda labada dhinacba inay ka jiraan markay jiraan kadib waxaa la rabaa macalinka inuu ka caawiyo ardayda inay aqoonsadaan zoneska kala duwan ee rootka uu leeyahay. Ardaydana waxaa laga rabaa inay calaameeyaan markaas kadib ayna sawiraan plant rootka. Activity 12 aan ayadana soo qaadanaynaa. Activity-gan muhiimadeeda ama aimka ay u socoto waxay tahay flowering plant in this section lagu sameeyo to identify the parts of a plant. Ujeedada ayadoo ay tahay plantiga qaybaha uu ka kooban yahay in la barto la aqoonsado. Marka materialska loo baahan yahay waxaa ka mid ah sawir angiosperm plant parts, flowers of pumpkin, papaya, watermelon iyo wixii lamid ah. Waxaa loo baahan yahay tweezers, scissors, scalpel, glue, poster board iyo markers si loo fuliyo activity-gan. Agabkaas ayadana loo baahanaya. Agabkan oo dhan waxaa waaye available waa la wada heli karaa. Procedure-ka uu u marayo si loo fuliyo activity-gan waxaa kow ka ah oo ka mid ah marka horeba ardayda in loo qaybiyo small groups. Group walbana la siiyo plant ama flower. Plant iyo flower marka la siiyo materialski kale ee lagu jarjari lahaana waa loogu daray. Tweezers, scissors, scalpel, hadba kii loo baahdo, glue, poster board iyo markers. Have students dissected the flowering plant using materials provided? Materialska la siiyey in ay ardayda isticmaalaan geedkan ay jarjaraan. Students could use their scissors, scalpel to remove each plant flower part. Flower partiga inay kala saaraan ayay u isticmaali karaan. Students will use glue to attach each plant flower part to the poster board. Flowerka markii ay soo saaraan ay soo jaraan qaybihiisa ay kala jarjaraan. Qayb walba waxay u isticmaali doonaan koolo si ay ugu dhajiyaan poster board. Boardka lagu soo bandhigayo flower parts. For each plant flower parts of the poster board, students will write a short description about its purpose inside the plant or the flower. Flowering plantiga doorka uu ku leeyahay ayay ku hoos qori doonaan mid walba structure walba oo poster boardka ama boardka lagu soo bandhigayo partska ku yaalo. Ugu dambeyn each group waxaa laga rabaa demonstration inuu ku sameeyo wixii ay sameeyaan iyo resultski ay ka heleen iyo structureska ay magacaabeen inay la wadaagaan kalaaska intiisa kale. 12 activity 12 instructionska intii hadda aan soo sheegnay procedure-kaas ayuu ku controlaa ardayda inay sidii loogu talagalay u raacayaan sidii uu isugu xigxigay. Plant flowering la soo qaato, materialskii lagu qaabay lahaa, lagu jarjari lahaa, lagu kala saari lahaa la soo qaato,
flowerka in laga soo saaro qaybaha uu ka kooban yahay la kala bixiyo lagula dhajiyo koolo iyadoo la isticmaalayo board kadibna labeling loo sameeyo qayb walba oo flowerka kamidana shaqadeeda lagu hoos qoro kadibna demonstration ay ku sameeyaan group walba intaas uu ku controlaya ardayda. You should relentlessly observe the learners as they conduct the practical oo inuu si toos ah oo joogtana ah ula socdaa inta ay sameynayaan activity. Students are supposed to keep the practical procedure handy and follow it stepwise. Procedure-ka mar walba waa inay fiiriyaan ay ku laabtaan si aysan u dhicin inay steps-ka qaar ka boodaan. Si aysan u dhicin inay taageero dheeraad u baahdaan. Procedure-ka inay sidaas u raacaan mar walbana uu ka agdhow yahay. Ayaa muhiim ah. Chapter assessments. Assessments-ki intii dhinaca laga fiirinayo kale ayaa laga fiirinaa kanina assessment mar walba ardayga asaga is assess gareynayo marka koobaad kadib classmates-kiisa kadibna macalinka ayaa assess gareynayo asagoo isticmaalayo techniques-kan observation tasks written tests and assignments haddii loo baahdo ama even quizzes loo baahan karaa oo class-ka intuu socdo la sameyn karo questions qoran iyo jawaabahoodii in la isticmaalo student record in la sameeyo si improvement-giisa loola socdo. murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmi